dowladda waddanka Sacuudigu waxa ay markii ugu horeysay qiratay dilka wariye Jamaal Khashoggi. Warbaahinta dowladda Sacuudigu waxa ay sheegtay in wariye Jamaal Khashoggi uu geeriyooday kadib markii uu ku dhintay dagaal ka dhacay qunsuliyadda gudaheeda xilli uu halkaasi joogay. Waa sida Sacuudiyaanku ay sheegaan. wararku waxa ay sidoo kale sheegayaan inuu Jamaal ku dhintay dagaal ka dhacay gudaha qunsuliyadda kaasoo dhex maray isaga iyo dad joogay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Xukuumadda waddanka Sacuudigu waxa ay shaqada ka cayrisay ku-xigeenka hay'adda sirdoonka Ahmed Al-Caasiri iyo waliba la taliyaha arrimaha xagga sharciga boqortooyada Sacuudiga Al-Qahdani kuwaasoo iska fogeeyay inay wax ka ogaayeen dilka wariyaha. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in waxa dhacay aan la aqbali doonin balse Sacuudiga uu yahay saaxiib dhow. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ku tilmaamay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday xariga xagga shakhsiyaadka wuxuuna Sacuudiga ku ammaanay tallaabada degdega ah ay qaadeen. waxa uu intaa ku daray madaxweyne Trump inkastoo cunaqabatayn ay tahay tallaabada waddanka Mareykanka u furan balse tallaabooyin noocaas ah ay aad u dhaawacayso dhaqaalaha waddanka Mareykanka ayaa horay u sheegay in haddii la xaqiijiyo in Sacuudigu uu ku lug leeyahay dilka saxafigan ay cawaaqib xun kala kulmi doonaan. dowladda waddanka Mareykanka ayaa horay u sheegtay in haddii la xaqiijiyo in Sacuudiga ay ku lug leeyihiin dilka saxafigan ay cawaaqib xun kala kulmi doonaan. waa markii ugu horeysay ee dowladda waddanka Sacuudiga ay qirato inay ka dambeysay dilka wariye Jamaal Khashoggi. waxaa lagu soo waramayaa in boqor Salmaan uu amar ku bixiyay in la sameeyo guddi wasaaradeed oo uu hogaaminayo dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan si dib u habeyn loogu sameeyo hay'adaha sirdoonka qaranka waddanka Sacuudiga. wararkan lagu daabacay wakaaladda wararka ee waddanka Sacuudiga ayaa ka dambeysay wax yar kadib markii uu boqorka waddanka Sacuudiga boqor Salmaan oo khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu arrintan kala hadlay. waxaa lagu soo waramayaa macluumaad sirdoon ah ay soo gudbiyeen Turkiga inuu Sacuudiga ka caawiyay baaritaanada. saraakiil aan magacyadooda la shaacin ayaa waxa ay sheegeen in meydka wariyaha lagu tuuray meel bayaan ka soo baxay dacwadoogaha guud ee waddanka Sacuudiga ayaa waxaa lagu sheegay in dagaal qunsuliyadda ku dhex maray wariye Jamaal Khashoggi iyo dad halkaasi ay ku kulmeen taasina ay dhalisay dhimashadiisa. baaritaano ayaa hadda socda. bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in 18 qof oo Sacuudiga u dhashay in xabsiga loo taxaabay. Jamaal Ahmed Al-Caasiri afhayeen sare oo boqortooyada u qaabilsanaa dagaalka dalka Yemen General Asiri wuxuu 2017 warbaahinta siiyay wareysi ku saabsan dagaalka waddankaasi Yemen isaga oo difaacay tallaabooyinka waddanka Sacuudiga ee dalka Yemen. Sacuud Al-Haqdani waa la taliyaha boqortooyada ahna la taliyaha gaarka ah ee dhaxal sugaha waddankaasi Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. 2 Oktoobar saacadu markay ahayd 3:28 daqiiqadood diyaarad khaas ah oo siday dad lagu inay ahaayeen mukhaabaraadka waddanka Sacuudiga ayaa waxa ay tageen garoonka magaalada Istanbul. diyaarad labaad ayaa halkaasi soo gaartay goor dambe oo galabtii ah. haddaba saacadu markii ay ahayd 12:13 daqiiqo gawaari dhowr ah oo ay leeyihiin diblomaasiyiin ayaa muuqaalo laga soo duubay iyaga oo taagnaa xarunta qunsuliyadda waxaana la aaminsan yahay inay sideen qaar ka mid ah xubnaha mukhaabaraadka ah. saacadu markay ahayd 1:14 daqiiqo Mr. Khashoggi ayaa gudaha u galay xarunta qunsuliyadda halkaas oo uu ku doonayo warqado sharci u fududeynaya guurkiisa. saacadu markii ay ahayd 3:08 daqiiqo gawaari ayaa ka baxay qunsuliyadda waxaana muuqaalo laga soo duubay iyaga oo taagnaa dhismaha deegaanka guriga uu degan yahay qunsulku kaasoo u dhow qunsuliyadda. saacadu markii ahayd 9:00 labadii diyaaradood ee khaaska ahaa waxa ay ka tageen garoonka diyaaradaha. 3 Oktoobar dowladda waddanka Turkiga ayaa ku dhawaaqday in la waayay Mr. Khashoggi oo loo maleynayay inuu ku jiro gudaha qunsuliyadda. 4 bisha Oktoobar dowladda waddanka Sacuudiga ayaa sheegtay inuu ka baxay safaaradda. 7 bisha Oktoobarna saraakiisha Turkiga ayaa warbaahinta u sheegay inay aaminsan yihiin in Mr. Khashoggi lagu dilay qunsuliyadda gudaheeda. arrintan waxaa markii dambe si adag u beenisay dowladda waddanka Sacuudiga. 13 bisha Oktoobar saraakiisha waddanka Turkiga ayaa warbaahinta u sheegay inay hayaan cadeymo codada iyo waliba muuqaalo muujinaya dilka suxufigaasi.
15 iyo 17 iyo waliba 18 bisha Oktoobar baarayaasha wadanka Turkiga ayaa ku mashquulsanaa baaritaano ay ku sameeyeen xarunta qunsuliyadda hase yeeshee maanta oo ay bishu tahay 20 bisha Oktoobar ayaa Sacuudigu si rasmi ah u sheegay inuu dhintay Jamaal Khashoggi waxa ayna sheegeen inuu ku dhintay gudaha qunsuliyadda Saciid Axmed Timrayse wararka telefishinka caalamiga ah Star